aniga صح halkaasi wixii aan kala kulmay aniga ragnimadeeda ugu soo baxay ma fahmaysaa صح hadal qurux badanna waa u reebo iska daaya ay xaasidnimada Soomaalidana waa u hoosgeliyay waan u sheegay YouTube geedib صح hadii looga laabtay xitaa waa la helayaa waxay aad wali ها u ما yaqaanaan هذا saaxiib dhoola cadeynta waa lagu dhoola cadeynaa gadaalna waa laga cunaa ma fahanti exactly waa ku raacsana I agree with him lii waa ku raacsanahay marka inaa wallahi billahi hadeertaan yaxbulo hadda aniga hadda Malaysia ma fadhiyi nin cabaadayo ma ihi dee sidii laan dheerninba saaxiib waa soo baxayo geesaan ka dago guri magaalada ugu weynaaya degayo inta qof aan garab siin karno waa soo garab siiyo inta qof oo la cilcili karo ma ani aan arkana garab waa soo siiyo war shaqaysta iri nacal hooyadin ku yaala shaqaysta oo dad fiican noqda dee dadkii saaxiib kulligood lafii oo dhan ba cudur baa ka galay xaasidnimo ka gashay ayagoo dhan ba xaasidnimo lugaha ilaa madaxa xaasidnimo ka gashay dee anigana dad wali wada cadow oo wada nuuc kala ayo la isku wada qoslayo oo aad u jeedido lisgoosgoosanayo kuma dhex noolaan kari saaxiib ragnimadeeda ugu soo dhex baxay halkaasaan cirkaas ugu sii dhegay inaan hadeertaan dib ugu laabtay iyo aan dad eedeeyana daba qurux badna waa ayaga iyo maanta heesataa Soomaali oo dhan u jeedo dee maanta heesataa ilaahayna cafis weydiistaan gabadhaas walaasheen ahana ee ilmaha yarka ka dhintan cafis weydiistaan hadda kadibna dad toosan ha noqdaan haddii noqon waayaanna Soomaa dee Soomaali waa maxkamad saaxiib waa suuto wada miiran weeye ma fahanti wasamsi wada ha ku qaadaan ma fahmaysaa qofkii annaga aan jecelnahay aan leenahay qofkan uu saxan yahay koraan u qaadayna qofkan qalad yar iyo kibir aan ka dareenaane annaga Soomaali haddaan isla weynid waa necebna runta hadii laga hadlo dee qofka isla weyna saaxiib dhulkaasa keenaa shalba anaga kor u qaadnay aad iyo aad niyo lii caatow aad baa maastaa saaxiib niyow